nimankii u wareystay ee BBC dambi bay iga galeen dambi jirdil kiil jeel ogaadeen la igu sameeyay nafdil bay iyaguna igu sameeyeen iyagu kuwaas jirkayga dileen laakiin kana naftayda dileen sababta ay xaqiiqo jir anigoo maxbuus oo gacanta la igu hayo oo cadawgii gacanta igu hayay ee jir dilay ee bahdilay ee shakhsiyadayda iyo ruuxdayda baabiyay oo gacanta igu hayo oo ninka makarafoonka ii haya uu yahay cadawgii gacanta igu hayay oo ka idabata qori ah ka yana layla daba taagan yahay bastoolad yaa lay wareysanayay xaq umayna lahayn inay wareystaan waxaana ka rabaa raali gelin aniga iyo ummadda Soomaaliyeed iyo qaabka ay u dhaqmeen xataa gobolka ogaadeen iyo nin jooga haday wareystaan bay jirdil ku tahay shalay baa la wareysanayo garaadadii reeraha oo maxaabiis oo waxa weeyaan jigjiga dhexdooda taagan nin kasta oo jooga deegaanka Soomaalida oo la wareysta waa maxbuus xaqna uma la inay wareystaan waa inay ka bixiyaan raali gelin jirdil nafdilkay nagu sameeyeen iyo waxay nagu sameeyeen iyo khaladkay naga galeen aniga waxaan joogay bayaxow maxaabiista xabsiga loo bedelay ee bayaxow baan kamid ahaa nalama soo diinin waxaan nahay bayaxow waxaan ku joognaa maxaabiis baan ku joognaa jeelogaadeen markii nalaga soo daayay waxaan lagu yiri waa leen sii deyn nasiib darra ma ayna dhicin ee waxaan la geeyay xabsi labaad baan la geeyay xabsigii baan loo bedelay xabsi kii ka dhib badan oo aanu kii hore waan iska fadhfadhinay waan la dilayay jirdilkiina waa sidii uun waxa weeyaan beer nalagu qoto muxuu ahaa guriga nalagu dhisto oo adoomanahay baan la geeyay halkii anigoo jooga oo waxa weeyaan dadkii waala dadkii naafada ahaa dadkii sakaraadka ahaa waxa la yaala wixii in la kala luudiyo oo nin walba ehelkiisii loo geeyay ahayd ee sakaraadka haba halka nalagu daadguriyo nalagu luudiyo halkii anigoo maxbuus labaad ku ah baa la yiri Human Rights Watch baa war soo saartay oo tiri jeelogaadeen dhibaato ka dhacday arrinta waa inaad beeniso waana ku kaxaynaynaa dhagax buur baad tagaysaa halkaasaad ka beeninaysaa aniga askartii iwaday baa sidii ii waday askartii iga soo qaaday jeelogaadeen iga soo qaatay jeelogaadeen askarigii kaxeeyay bayaxow buu geeyay askarigii labaad iga soo qaaday bayaxowna wuxuu ii keenay dhagax buur kolkaan hadlayeen isaga ii hayay muxuu ahaa mobilkan ku hadlayay isaga baytriyo ii keenay oo yiri hadal oo sidan dhe warqadan akhriyeen leelaha waliba xataa waan garan maray wixii la igu yiri sheeg badankiisi waan garan maray askari baa idaba taagnaa isaga la sidan dhe warqad uu qoray oo askariga laftiisa loo soo qoray oo la yiri sida iyo saa waa inuu yiraahdo